خياري ومركز لي برنامج كيني كفتن كورديق 24 تي في halkan waxa uu ku suganahay waxa weeye xaafadda Masallaha ee magaalada Hargeysa wad aragtaan Hargeysa hadwanaag ba halkan inaga soo eegaysa barnaamijka caawa waxaan kulan kula yeelan doonaa macallin Xamse Maxamed Jaamac oo ah macallin bixiya mihnada saxaafadda ala waxa uu bal arki jiray macallinka in marka wareysi la yeelanayo laga wareysto waxyaalo la xiriira saxaafadda iyo amurahaas balse caawa waxaan leenahay warkii hore war soo dhaaf macallinka inaan ka yaabsanaan doonayna caawa wad aragtaan wuxuu ka soo baxay hawdalka Masallafiyo maxaan ka caawin ka yaabsanaynaa daawasho wanaagsan waxaan kugu yeernaa horta maanta inaan kula kulanaa waxay ahayd kiris lama filaana saasay tahay haddana awal wuxuun baa dhici jirtay marka meelaha lagula kulmo in wareysi lagula yeesho ku saabsan mihnada saxaafadda warbixino wax noocaasa balse arrintan anugu caawa ku wada way ka duwan tahay kuwii hore lagula iman jiray caawa inaan kaa yaabsanaan doonaynaa diyaar ma tahay yaab iida darteed yaab horta yaab imakaabay sheeka timid been yaabka laftirkiisaaba yaab wateen talow waad iga sii naxisay maxaad iga yaabinaysaa ku sheeg mana gadaal bad ka ogaanaysa kale way diyaar baan ahay waxaan leeyahay adkay daawanayba bal yaabka haddii maaragtay aan xanaaq imakabayna taasaa maxaaday aad kala xiriiri doontaan wixii maxaa bartaa kala anu maan geysanin laakiin iyada geysatay ana gala su'aalaha kooban baan ku weydiin doonaa su'aalan ku weydiinaya waxay yihiin macallin Xamse barihi u dambeeyay waxa dhulka Soomaalida kala xidhay barankiska oo ah arin ay dhalinyartii Soomaalidu aad farabadan ugu hayaan bal marka fikirkaad ka aaminsan tahay falcelintaad ka qabto arinkaas barankiska wax naga sheeg horta barankiska la sheego waxaan u arkaa inuu yahay qof aan waxba ogeyn oo laga xanaajinayo marka dhan la eego ma fiicna waxaad arkaysaa qof baa maxay laga xanaajinaya markaas hadhow la odhanayo raali noqo barank baa intii aan baranka daawani waxa ugu qosol badnaa waxaan arkay mid baaxaya markaas oo dhan saaxiibo barank baa raali noqo marka waxa kale xitaa ugu yaabadnayd intii aan daawani barankiska inaan xaafadda soo aftaga ayaa ninkii xaafadda iyo gabadhii xaafadda deganeyd ayuu heshiinayna ku odhanayaan inankan inoo soo aftaga maanta barankis baan ku samaynanaa deeto inankii wax lagu odhanayaa ma soontid ma tukatid adigoo hotel wax ka cunaya ku arkay inankii waa laga xanaajinaya deeto inankiioo xanaaq dee maxaa hayday dhankaa maray oo dee dagaal xaaladdu ay gaadhay dagaal ayaa lagu odhanayaa marka dambe barank bay ahayd xaali noqon marka dee farsamada dadka looga xanaajinayo waa arrin maxaa hayday dhibteeda leh aniguna aad baan uga taxadiraa barankiskaas iyo waxyaabahaasoo markaan arko dad maxaa hayday si qaldan kuula hadlaya waxaan eegaa bal inuu meelaha kamarida taalo oo kaa waan iska ilaaliya barankiskan haddaba halku ka yimiday waqtigii aan ciyaar iskuulka ahayn waxaan xasuustaa in barankiskan waxyaabo la mida aanu ku samayn jirnay ardayda kale iskuulka nala dhigata oo tusaale ahaan qof baad intaad dhirbaxdood ku odhanaysaa waariyaa saaxiib miyaad ogtay markab tufaaxa yimiday berbera markaa qofkii baad canduuf ka buuxinaysaa markaas odhanaysaa qofkii baad odhanaysaa maxaa yeelay tufaax marka tiraado tufaax ayaad qofkii dee canduuf ku tufaysaa markaasuu qofka iska masaxay markaasuu odhanaa maad waalinta xaggeed canduufta ku tufaysaa saaxiibtay markaad tufaax helay ayaa canduuftii maxaa yeelay kugu soo duushay raali noqon si kalama marka barankiskaas waxaad u malaysaa in laga soo guuriyay xigmadii hore dadku ay maxay ahayd isticmaali jireen oo xigmadii la farsameeyay baan oran karnaa xigmadii oo kamarad loo qaatay oo kamarad qarsoon loo qaatay marka saasan waa macallin Xamse mid kale oo jirto imika waxa dhacaysa wiil gabadh guur ka doonayo kale ayaa wuxuu garan waayay wada uu soo maraa ama hawshu ku fududeeyo deetana waxa dhacaysa inuu sheekadiisi bankis ah oo u galo
deetana uu guriga guuldaraba ugu talagalo oo haddii ay guuldaro noqotona uu yidhaahdo barankis bay ahayd hadday guul noqotona ay sheekada iskugu dhacdo dee wakaa marka qaar buu faa'iido leeyahay barankiskaas ma odhan karnaa lama odhan karo horta haddaynu ummad baraank noqono dhibteeda leedahay iminka xitaa iidii dhaweyd baa baraanki naga gashay oo inta markii hore layidhi berri waa soon ayaa haddana habeennimadii layidhi saqdii dhexe waa iid marka haddii dee wax kasta la fudaydsado dee wuxuunbaa sii xumaanaya marka waxaan leeyahay dadka dhaqankii hore ha lagu toosnaado sidii dee magaranaysaa jiritaankii dadku ahaa yaan la qalloocinin sheeko barankiska laga tago sheeko barankiska la iska daayo macallin xamse aad baad mahadsantahay horta intaad waqtigaaga noo hurtay weliba anagoon ku sii wargelin oo si kedisa kula kulannay su-aal kalean ku weydiin lahaa su-aasha kalean ku weydiinaya waxay tahay iminka muddooyinkii u dambeeyey sidoo kale dhulka soomaalida waxaa aad looga isticmaalaa applicationka ama backgroundka ah TikTok oo xataa waayeelkii imka dhalinyaro keliya hata isticmaasho ma odhan karno waayeelkii badankooga xataa lagu dhex arkayo waxaa dhacday in aan adiga TikTok lagugu arkin ama applicationkaasi aanad ka soo dhex muuqanin marnaba bal markaas arrintaas baan rabnaa inaad faahfaahin naga hersiiso dee TikTok laftarkiisu waxaad moodaa inuu yahay waxyaabo hore u dhici jiray oo kamarad loo qaatay iminka tusaale ahaan TikTok waxyaabo xunna uu leeyahay waxyaabo fiicanna uu leeyahay xigmado fiicanna ku jira xigmadaha fiicanna ku jira waxaa ka mid ah oo ah tusaale ahaan sheeko jiri jirtay oo waqti hore dhacday waqtigii Ingiriisku uu dhulkan gumaysan jiray nin maxay lacag ka dhacay deeto ninkii lacagta laga dhacay ayaa ninkii soo dacweeyey oo maxkamad geeyey ninkii lacagta dhacay ee lacagta lagu tuhunsanaa ayuu garsoori ku yidhi waryaa ninkan lacagtaad ka dhacday si markaasuu ninkii yidhi lacag anuu kamaan dhicin manaan arag manaan arag sideen lacag uga dhacay aniga wuu wanjalaya markaa ninkii istifaac buu galay deeto ninkii lahaa lacag baa laga dhacay ayaa lagu yidhi orodoo halkii lacagta lagaaga dhacay tag deeto ninkii waxoogaa markuu maqnaa ayuu kii garsoori soo kacay ninkii kale lacagta dhacay ee lagu tuhunsanaa halkana la fadhiisiyey garsoori baa soo kacay deeto wuxuu u yimid ninkii lacagta lagu tuhunsanaa wuxuu ku yidhi waar ninkii naga tegey ma u malaynaysaa inuu gaadhay halkii aad lacagta kaga qaaday markaasoo dha maya ma dhowa deetan bartibay kaga caddaatay ninkii inuu noqday ninkii lacagta dhacay inuu noqday halkii bay kaga caddaatay deeto sidii baa ninkii lagu maxkamaday oo lagu yidhi ninka lacagtiisii sii wadacday marka waxyaabahaasoo kale iyagoo dhallinyarada TikTok matala ay ku soo bandhigaya waan arkay oo xigmadihii hore u dhici jiray bay dib u soo noolaynayaan dhankaa marka laga eego waa faa'iido waxyaabaha qosolkee ku jira TikTok aan ku arkay waxaa ka mid ah wiil baa intuu soo cararo dukaan u imanaya markaasuu ku odhanaya ma haysaa tamaandho ma haysaa haa barandho ma haysaa haa biyo ma haysaa haa basal ma haysaa haa ilaashada yaan idinka xaday halku ka sugayay inuu ka iibsado aniga imka waxaan sugay inuu ka iibsado qaatay marka wuxuu ku odhanaya halku ka sugayay in kii dukaanka haystay oo soo qadiman oo isla ninkan waxaasoo dhan uu ka iibsanaya oo xaal la soo taagan ayuu ku yidhi ilaashada yaan laydinka xadinaya marka ninkii intay kaba qaateen bay ku yidhieedeen marka waxyaabaha qosolka oo kale xigmadahaas oo kale waa xayeen waa laga faa'iidi karaa laakiin sida kale dee waxyaabo xunxun ay ku soo bandhigaan ama hadallo xunxun ay ku soo bandhigaan TikTok wuu jiraa la iska ilaaliyo in leeyahay marka horta TikTok uu dhaamaa barankiska oo TikTok waxa weyn dadka xaraabaysanayeen laakiin barank waa waxyaabo lagu qariyay ay noqonaysaa marka TikTok oo dhibaatana ka iman karto TikTok waxaba dhacda dad badan oo xirfadahooga marka hore guryahooga la fadhiyay baa imka soo bandhigayo ama hibadii ay lahaayeen bay soo muujinayaan صح macallin xamse waqtiga inagu yar awgi waan jeclayn waqtiyo badan inaan kula qaadano laakiin waqtiga inoo saamixay sababtuna waxay tahay inaan si kaliisa kula kulannay aynaan mawcid lahayn insha Allah waan rajaynaynaa waqtiyo badan soo socda inaan wada qaadan doono waxyaalo badan oo kalena aad nala wadaagi doonto aad baad ugu mahadsantahay su'aalaha qofta ka aad la yeelateen waan soo dhaweynayaa kulley jawiguna iska degan yahay ما شاء الله وتا عاصمتيده magaalada joognaa marka waxaad moodaysaa markaad magaalada dul taagan tahay quruxda markaad daawato jawi degan baad galaysaa
maxaa ahayd haddii aad buuq iyo stress aad dareemaysay marka aad baan idin soo dhaweynayaa qoladiinan Wardeeb 24 soo dhawaad leeyahay أنا دونا هاي معلم